beentu ninkani inantan marka horena ku xumeeyey ee uu ku fara xumeeyey ayuu haddana weliba imika xishood wax allaala xataa iska yara waa qilatul edeb baa tahay oo edeb daran tahay. ugu dambayn waxa ay iska daba jiidanto arrinta ku saabsan mushtaaq cabdi naano iyo sidoo kale saygeeda barkhad batuun oo la isku haystay buuq badanna uu ka taagnaa. markan waxaa soo hadlay awowga mushtaaq cabdi naano isaga oo xanaaqsan aadna u kulul ayuu sheegay in xilligan gabadhiisa lagu canaadayo rajanimada iyo sidoo kale agoonta ay ku jirto. wuxuuna sheegay inay tahay sababta loo ceebeynayo inay tahay in aysan haysan xilligan dad u dooda oo ah kuwii dhalay oo ay ceebtoodu dhibayso. mushtaaq cabdi naano awowgeed oo xanaaqsan bal ila daawada iyo sidii uu ugu falceliyey nin horay u sheegtay inuu yahay adeerkeed kaas oo sheegay in gabadha uu si sharci darro ah ku qabo xildhibaan barkhad jaamac batuun. sharcigeedii si raganimo leh oo dadnimo leh oo xaqa oo runa bay u hadasho waxaa walaaqeedii halkaa ay soo dhigto lagu meheriyey. ilaahay baa u fasaxay muslimka jumeekan baa la qabaa qaar aan diinba nama haysanin baa la qabaa afarta kutubul samaawiya la yidhaaho furqaan iyo injiil iyo subuur iyo towraad midna aana haysanin oo duqsigaya iyo dooryaanka cuna baa la qabaa. jibsi baa la qabaa halkan lagu qabaa ingiriiska jumeekan baa qaba buuryaqa midhan baa qaba ka odhi kuwaad u hadlaysa ad u soo raacday inanta inamadoodaa la qabaa. waxaa la yidhaha jaamacadda dhaqanbiiska abaasada la yidhaha iyo dugsiga sare inamadoodaa la qabaa waa kuwii hargeysa lagu xukumay todobada lagu xukumay ka odhi diintaa u banaysay. arrinta ku saabsan gabadhan iyo saygeeda ayaa si weyn dood uga dhalisay baraha bulshada oo ay ku kulmaan dadka. tani waxay keentay in loo kala qaybsamo laba qabiil. odaygan oo shalay ka soo muuqday muuqaal ayaa ku faanay in uu awood ku tijaabin doono awooddiisana u adeegsan doono haddii barkhad batuun uu gabadhooda sii dayn waayo. laakiin awowga gabadha ayaa sheegay warka uu ninkaasi sheegay inaysan waxba ka jirin gabadhuna ay tahay qof dooqeeda leh. wuxuu yidhi gabadhayda waxaa lagu maagayaa rajada iyo agoonta ay tahay taas ayaana ah sababta loo ceebeynayo. ceebteeda annaga ayayna dhibaysaa annaga ayaana u nool oo waalid u ah ayuu yidhi isaga oo si weyn u garbaashay oday hore u sheegtay inuu yahay gabadha adeerkeed. bal aan daawano muuqaalka oo dhammaystiran iyo sida uu ula hadlay. bal inta aanan u gudagelin saaxiibayaal muuqaalkan waxaan idinka codsanayaa inaad like saartaan siina aad share garaysaan si saaxiibadiina aad ula wadaagtaan. sidoo kale commentigaaga noogu qor fariinta ku saabsan sida ay xilligan kuula muuqato in la cunsuriyeeyo qoys Soomaaliyeed oo jacayl farxad iyo horumar iska dhex arkay taas oo lagu faquuqayo waxaad ka soo jeedaa qabiil hayb sooco. waa sababta loogu diiday xildhibaan barkhad batuun looguna diidan yahay in uu xaaskiisa ka dhigto gabadhan oo ahayd xaaskiisa sidoo kalena ilmo hore ugu dhashay. عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام يا جماعة الإسلام. وأنا صابر. نين هالكن. ولا هذا كنت رايدي مشتاق عبدنا نوبان أداروها ولا يري مصطفى الله يلاها. على واحد شو. الشوط والله راح تاسكيره وقلة الأدب بتاعي والأدب درنتهاي. طبعا لا يا صدر وإن تبوا أدارك تهانا بهاي هو يطلع هنا كذا عايزينه. sharcigeedii si raganimo leh oo dadnimo leh oo xaqa oo runa bay u hadasho waxaa walaaqeedii halkaa ay soo dhigto lagu meheriyey. ilaahay baa u fasaxay muslimka jumeekan baa la qabaa qaar aan diinba nama haysanin baa la qabaa afarta kutubul samaawiya la yidhaaho furqaan iyo injiil iyo subuur iyo towraad midna aana haysanin oo duqsigaya iyo dooryaanka cuna baa la qabaa. jibsi baa la qabaa halkan lagu qabaa ingiriiska jumeekan baa qaba buuryaqa midhan baa qaba ka odhi kuwaad u hadlaysa ad u soo raacday inanta inamadoodaa la qabaa. waxaa la yidhaha jaamacadda dhaqanbiiska abaasada la yidhaha iyo dugsiga sare inamadoodaa la qabaa waa kuwii hargeysa lagu xukumay todobada lagu xukumay ka odhi
diintaa u banaysay diintaa u banaysay diinteenaa u banaysay haddaad muslim tahay ad islaam tahay ood kitaabka islaamka haysato eedhe diintaa u fasaxday islaamku waa uu guursan karaa meel allaala meelu joogo jiha u leeyahay jinsiyad u leeyahay ma jirto waxa adeer sidaasaad weliba u tahay aad leedahay halkaad aabaheed iyo hooyadeed oo dhintay u geli lahayd aad la soo daba taagantay ceeb wax iskufa xishood iimaankii baa kaa maqano heegaa ku soo dirato dabada waa lagu yaqaanaa waxaa tahay mustafa waa lagu yaqaanaa weligaaba inaad heegaya daba caranaysay inaad bixiyo sacabka u garaacisay meelahaas kuwa soo fadhiista aad tahay horaana waa lagu yaqaana imikana waa lagu yaqaanaa waa inan dadka ka maskax ballaaran ka horeysa ka wanaagsan oo wax fahmaysa diin islaama haysato sidii kitaabku yiri ku dhaqmaysa gawdhi halkaasay shalta si badheena uga cadaysay wax allaala wixii dhacay oo dhan bay ka cadaysay gawdhi kuwa adiga difaaci lahaa ee diinta islaamka ku difaaci lahaa iyo wanaagga ay samaysay derbigii baadin bay jibsay gawdhi malaayiin bay ka qabaan kuwa dabada kaa soo diraya malaayiin bay ka qabaan maxay kuwooda uga hadli waya alla miyu kulmiye ahaado imika reer kulmiye ahaado biyo dahab baa laga dhigi lahaa biyo dahab baa laga dhigi lahaa adiguna halkaasoo lasoo fadhiisatay maaha waraaqo yaraxna caynkan iyo sidan iyo nacas fooqa nacas aan laala yahay jirin oo doqona baa tahay oo fadeexada daba fadhiyanto ayadaa kaa hagaagsan la soxo wixeedii oo sharciga waata halkaas soo dhigtay ee runa haddaan waxaan kuu sheegayaa eedhe dama fadhiiso ka istaaqfaruleyso malaa muslim baana dhahayne kitaabkaaga haddaad ilaahay caabudo muslimnimadu kaa saxto islaamnimadu kaa sax tahay islaamka ilaahay waa isu wada baneeye waana nin islaama waana reer islaama waa kula dhaqan waa kula diin waa kula dad waa kula beyan waa kula magaalo waa kula degmo waa kula gobol waa kula af gawdhe hadduu gaal guursado maanta buuriqabihi waad farxi lahayd nacad baa guursaday wallahi chinese bisaaska cuna iyo doofaarka cuna iyo dooryaanka cuna haddii ay guursado sacabkaadu garaacla malaa midabka cad baa dee suurisa haddaanku cunsuriyadda uu nagu hayo annaga madowga iyaga qurbaha jooga mid lamidabaa lagu haya reerkuna halkaa la gaadhsiiyey wax allaala wax ka hor joogaana ma jirto kitaabka ilaahay baa u fasaxay waa runteed way ka maskax ballaarantahay ummadda way ka horeysaa intay ka horeyso weeye waxaa halka ay gaadho ee diinta ka haysato iyo islaamka ay haysato midna adigu ma haysatid waa isla umaad hadasheen oo intaad meel soo fadhiisato waxaad kooga alifkeeda waraaqdeeda seetana waa iska soo bixi waan iyadaa laga ayidsan yahay oo kaa ayidsan oo kaa jecel laha ya dib u fadhiiso waxay oo stupidkay wax allaala waxa taa iska yara ya nothing zero baa taha ya ma ninka halkaa usoo fadhiisan lahaa baa taha maanta weliba iyada ceebeen lahaa ceeba dabageli lahaa baa taha oo weliba sheeganaya adeerkeed ya aabaheed baa noolayn maanta iyo hooyadeed baa noolayn ya gawdhi laakiin annakaa u nool gawdhi waad edab daran tahay ka fadhiiso dadka annakaa kuu sheeginay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu